waa dharaar amase habeen geyiga Soomaaliyeed ee Geeska Afrika muhiimad u leh. Soomaasha dadkeedu waa ayaanay dhaadayaan dareen dal jeclaysi huwan. diiwaanada daabacan ee duugoobay ee xasuusaha taariikhda ka hadlaya waa ayaabo aynu dib u akhrino. waa dharaarihii xorriyadeenna. waa ayaamaha idaacaduhu baahiyaan heesaha wadaniga ah, gabayada guubaabada leh iyo barnaamijyada suugaanta iyo sooyaalka daaran. waa dharaaro yididiilo iyo dhiirranaan gelinaya dhallinyarada oo dharka hiddaha iyo dhaqanka intay xidhaan farxad awgeed ay qoobka ciyaar ku dhaanta wadaagaan. waana waqtiyada waayeelka taariikhyahanka la miciin bido ee waayo iyo waqtiyada wacan ay warasada la wadaagaan. dharaarta aynu xusanaaye ilaa heerka aynu xiisaynana tumay ahayd. si aan maalintaa u tilmaamno toobiyaha taariikhda waa inaynu dib u raacnaa ilaa aynu ka gaadhano sanadkii abwaanka Soomaaliyeed uu lahaa. samadakii wekaaye xidiga mid la siiyayow saaxirkii kala guure sarreeyo ma nusqaamow aan siduu yahay eegnohe ka nasiibkana saare. waa dharaartii 26 bishii Juun sanadkii 1960 markaas oo dhanka waqooyi ee jamhuuriyaddeenu xorriyaddooda ay qaateen. waa maalintii ugu horreysay ee calanka buluugga ah isagoo xor ah uu bilaad Soomaaliyeed ka babado. waa 59 guuradii ka soo wareegtay maalintii ugu horreysay oo dhul Soomaaliyeed oo xor ah calan Soomaaliyeed uu ka babado oo laga taago. waa maalintii halgankii dheeraa oo dhibka loo soo maray laga mari dhaliyey oo Allah u naxariistee Cabdullaahi Suldaan Timcadde oo qiiraysan erayadiisii wadaniyada ku dheehnayd taariikhdana gashay uu ku yiri sarreeyo ma nusqaamo aan siduu yahay eegno ee kaana siib kana saar. calanka Soomaaliyeed goobtii u horreysay ee laga taagay waxay ahayd beertii xorriyadda ee magaalada Hargeysa, taasoo qof walba oo Soomaaliyeed shucuurtiisa iyo dareenkiisa ay taabatay. waxaa magaalada Cadan laga soo qaaday ciidamo loo carbiyay inay u murugoodaan marka calanka Ingiriiska la dejinayo. raggaas oo tumayay muusig tiiraanya leh waxaa lagu tarbiyeeyay marka calankooda la dejinayo inay 10 tallaabo dib u qaadaan iyaga oo sii jeeda oo aan dib u soo jeesanayn. caado waxa kale oo Ingiriisku lahaa marka calankooda ay rogaan inay dib u gurtaan calankay wataan aan soo jeesan ilaa 10 tallaabo dib u gurtaan. markaas sidaasaa dhacday kooxdaasaa timid oo calankii way soo rogeen muusiga murugada ah ay tumeen hogol bara waaweyn ayaa nagu daaday. murugu Ingiriis lamaydaan markii ay Hargeysi maya tidhiyeen. waa habeenkii 26 bishii Juun ee hal abuurka reer waqooyi uu heerka sare gaadhay. waa habeenkii saxardiid jabiya uu lahaa. ma gawdo candadii gola marise an malo hashe namande wa malin muran iyo waa dharaartii dhalin iyo waayeel dadku wada dhoolla cadays ka sinaadeen ee dhagdhagta u wada qosleen oo waa maalintii Cali Sugulle uu lahaa. hangaja iyo harahadan qalme dara hartan usoo dhiibahatan mutay doolaha qosol maygu soo dhacaye. waxaa xusid mudan in suugaantii Soomaalinimada iyo wadaniyadda abuurtay ay ka timid badankooda
abwaanadii ka soo jeeday gobollada waqooyi. abwaanadaasi waxay ku reebeen ummadda Soomaaliyeed dareen waddaniyad iyo waddan jacayl iyo ilaa maanta ay ku abuuran tahay dadka Soomaaliyeed qulubtooda. sida dhibicda roobka ninka beeralayda u dhowro ayay Soomaalidu meelay joogtaba u sugayeen kal uun dhawaaqa xorriyadu dhagahooda inuu ku soo dhaco. abwaanaduna dareenkaas iyaga oo qaba waxay dafayeen qulubta dadka iyaga oo ku dhibicinaya dareen waddaniyadeed. xuseen ow faarax 1954 magaalada Hargeysa waxa uu ku qabtay riwaayadiisii ugu horreysay ee af Soomaali lagu dhigo ee gumaysidiidka ahayd. wuxuu arbihii riwaayadda u dhiibay erayo dadka u sheegaya dhulka iyo barwaaqadiisaba inay iyagu leeyihiin oo aysan cid kale marti uga noqon. oo wuxuu yidhi: arligeenna annagaa leh, arrinkiisa annagaa leh, aqoontiisa annagaa leh, aqbalkiisa annagaa leh, adduunkiisa annagaa leh, ubixiisa annagaa leh, anfaacigiisa annagaa leh, aayaddiisa annagaa lahoo iftiinkiisa annagaa leh. malahayga hadduu maanta noolaan lahaa wuxuu dhihi lahaa: bilaadkayagan annagaa leh, baadkiisa annagaa leh, baatroolkiisa annagaa leh, barwaaqadiisa annagaa leh, barrigiisa annagaa lahoo badihiisa annagaa leh. waxaan ummadda Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in dowladdan ay ku howlan tahay soo celinta sharafta iyo karaamada dadkeenna ee hore u lahaan jireen iyo buuxinta kaalintii Soomaaliya ay ku lahayd beesha caalamka. si taas loo hirgeliyo, Soomaaliya waa inay noqoto dal nabada, ku guulaysata midnimo, kuna tallaabsata horumar. sidaas darteed midnimo, wadajir iyo cududeenna aan isu geyno ayaan kaga gudbi karnaa tartanka ka socda adduunka ee ah dhanka horumarka ama siyaasadda iyo dhaqaalaha. calankaas korkeenna babanaya maxaa kifax loo soo maray. maanta oo aynu joogno calankeenna xorta ahi wuxuu inaga sugayaa in dadaalkeenna aan laba jibaarno oo aan gacmaha isqabsanno, innaga oo madax iyo shacabba wada jirna oo isla janqaadaya.